السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلو هدي عصب تهي مجيء ودكتور جابر ما تحروا أنا كهذا تضاوخضب على كوهين أوركا سيدا أنا خانو قبل مركب أوركا دي كدب على مدوين بدن أيرو أركا سيدا عادي أو كمخناتو بدن حنون دال فرب بدن كعادي بدن وحياة بدن أيرو أركا لكن حروا أنا كهذا على مدوين أما قضبوين مهمة أهلا أخونين هدا فيديو يقول ميزتين أرونتي وحبنا فائدة دونت قضب كواد أيام كور مريدونا qodobkooda wuxuu noqon doonaa aan ka hadlayno gabadha markay uur qaado kadib waxaa badan doono dhiigga jirkeeda ayaa aad u fara badan doono ama si kale hadaa u dhahno dhiigga jirka la gaarsiinayo ayaa badan doono waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 30 ilaa 50 waxaa la dhahaa uu badan doonaa maxaa la yiraahdaa dhiigga caadiga ah oo jirkeeda markii normalka ah ayuu ka badan doonaa saas daraadeed marka sababtan waxaa lala aaneeyaa maadaama jirkeeda cunug uu kusoo biiray jirka wuxuu u baahan yahay inuu helo dhiig fara badan saas daraadeed marka wadnaha garaaciisa aad ayuu fara badan doonaa si jirka loo gaarsiiyo dhiig fara badan qodobka labaad xasuusaha oo yaraada waxaa la dhahaa runtii gabadha markay uur qaadaan kadib waxaa la dhahay xasuusahooda aad ay u yaraadaan ilaa hadda lama yaqaan sababta keeni karto in xasuusaha ay yaraadaan laakiin waxaa la aaneeyaa wax la yiraahdo sex hormones laakiin sida dhabta ah wax sababa in xasuusta uu yaraado lama yaqaan qodobka saddexaad gabadha waxay wax ka carfin doontaa meel fog waxaa la dhahay gabadha markay uur qaado kadib in carafta ama wax ay carfinteeda in aad u fara bato runtii sababtan waxaa la aaneeyaa dhiiga fara badan ay waxa la soo gaarsiin doonaa sanka soo wax la yiraahdaa jira smelling sanka wuxuu sameeyaa smelling ama wax inuu carfiyo saas daraadeed marka dhiig fara badan hadduu sanka soo gaaro waxaa la dhahay wuxuu keeni karaa gabadha in wax badan ay carfiso soo qodobkaas runtii waa muhiim asigan qodobka afraad 70% waxaa la dhahaa gabdhaha waxay isku arki doonaan lugahooda oo weynaado ama balaarto sababtan waxaa lala aaneeyaa wax la yiraahdo relaxin hormone okay relaxin magacaasa ka dareemaysid relaxin waxaa la inuu kala bixiyo wax arjowda lafaha ayuu kala bixin doonaa saas daraadeed waxaa la dhahaa lugaha gabdhaha markay uurka qaadaan kadib waxaa la aad ay u weynaan doonaa ama u balaaran doonaa boqolkiiba xitaa 70 ayaa la dhahaa qodobka shanaad waxaa la dhahay gabadha waxay develop gareyn kartaa wax la yiraahdo baabasiir ay halis u gali kartaa gabadha inay develop gareyso sababtan waxaa lala aaneeyaa xilliga dambe ee uurka gabadha waxaa bato wax la yiraahdo constipation ama calool fadhigeeda ayaa aad u bato saas daraadeed marka calool fadhiga oo bato asigana wuxuu keeni karaa in gabadha ay develop gareyso waxa la dhaho maxaa la yiraahdaa baabasiir soo qodobka lixaad asigana wuxuu noqon doonaa timo kasoo baxo xabadka waxaa la dhahaa timo ayaa waxay gabadha kasoo bixi doonaan xabadkooda ayadoo lala aaneynayo hormones qaar laakiin lama yaqaana sababta laakiin waxaa la yiraahdaa gabdha qaar waxaa lagu arkaa timo in xabadkooda ay kasoo baxaan qodobka toddobaad progesterone iyo estrogenkeeda oo bato waxay keeni karaan in codka isbedelo gabadha codkeeda ayaa waxaa isbedel ku imaan doonaa waxaa inta badanna lala aaneeyaa hormoneska dumarka oo la dhaho estrogen iyo progesterone okay estrogen iyo progesterone marka hadday bataan waxay keeni karaan marka codka gabadha inuu weynaado ayay keeni karaan soo marka qodobka toddobaad ayuu ahay haddaba qodobkee kuleeyaa badan adiga inta hadda qodob aan sheegnay aas leedahay runtii qodobkaas waxaa waaye waa macquul ma ahan ama maxaa la yiraahdaa qodobkaas runtii funny ah ama maxaa la yiraahdaa qodobadaas runtii qaar ka mid ah anaa indhahey ku arkay so haddaa intaasba aad maxaa la yiraahdaa fikir ka haysatid ama fikir ka dhiibanaysid xagga commentiga noo reeb sidoo kale telegramkeena soo aad linkigeena xaggaasna runtii waa ku wada xiriiri doonaa xaggaasna nagu soo bir thank you so much guys waa mahadsantihiin